jaamac Muuse Faarax waa mid ka mid ah dadka aragga naafada ka ah isla markaasina gudoomiyaha dadka baahiyaadka gaarka qaba ee gobolka Sanaag oo wareysi gaar ah siinaya telefishinka caalamiga ah ee Kalsan TV ayaa xukuumadda Soomaaliland oo hogaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo waliba dalada dadka naafada ee Soomaaliland ku eedeeyay inay ka gaabiyeen xusitaanka maalinta naafada adduunka oo ku beegnaa 3 bisha Diseembar waxaana xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sheegay inay sin xaq ay ku lahaayeen qarankani dadka naafada ahi aad baan ugu dhawaay wariye aad baad mahadsan tahay sanad guuradaas oo 3 bisha 12aad oo maalinta naafada adduunka wax xusi kama dhicin gobolka Sanaag iyo badi Soomaaliland oo dhan marka laga tago in yar oo la yiri waxa isugu yimaadeen meel hool kamid ah hoolasha Hargeysa kuwaas oo wax weyn aan xusanin wax qorshe aan ma sheegin xukuumaddu ay naafada u hayso 29 sano ee Soomaaliland jirtana waa la xusayay maalmahan xus waxaan ahayn ama in la yiraahdo naafadan xus maalinta naafadan baa la xusay waliba naafadaas oo abaabshay dawladdu waxay soo abaabshay ma jirto sababta dawladdu naafadan xaqi ay lahaydba ma aqoonsano way ka dhacsan yihiin malaha waxaad isooran kartaa mararka qaar kood dastuurka Soomaaliland qodobka 19aad wuxuu sheegayaa naafadu inay xaq leedahay ama dadka baahiyaha kale xaqaasna haday tahay waxbarasho caafimaad hoy shaqo intaba in dawladda xilkeedu saaran yahay taasi ma aha mid hirgasha oo kama helo dawladda xaqi aanu lahayn dastuurku noo waafajiyay anagoo ah muwaadiniin cod bixiyaal cashuur bixiyaal qaranka Soomaaliland kama aanan helin muddada 29 sano ah xaqi aanu lahayn waxana aad moodaa in aanay dawladdu uba baraarugsaneyn dadkan la nool iyo duruufta ay ku nool yihiin dadkan oo dadkii inay dhibaato ku yihiin caafimaadkii waxbarashadii hoygii dhinacii shaqada iyo noloshii waxaad soo kartaa mararka qaar kood qarankeena waxa uu la isku baacsadaa oo lagu murmayaa inta dadka inta ladanay wax haysataa inay ku muranto ay ku qayliso xildhibaanaanu doonaynaa iyo xisb musharaxiin baanu doonaynaa waxa laakiinse waa la ilaaway lambar badan oo bulshada Soomaaliland kamid ah oo xaq ku lahaa dalkani iyo xuquuq deyntaas jaanislaan intaas masaal uma noqon karto shacbi weynaha faraha badan ee baahiyaha gaarka ah la nool haday dhagaha yihiin haday indhaha yihiin iyo haday lugaha yihiin marka xukuumadda iyo madaxweynaha iyo dhammaan waxaan ku codsanaynaa in dadkan ay helaan xaqii dastuurka Soomaaliland uu siiyay xaq jaamac adigu waxaad tahay gudoomiye dadka aragga naafada ka ah golaha deegaanka ee degmada Ceergaabo ee bulshada soo dooratay iyo barsaabkii gobolka wax wada shaqeyn horta maleedin ku markii hore may wax wada shaqeyn ma leeyno isma bagaadna sababta marka tagto xafiisyadooda iyo goobahooda waxa suuragal ah inaanad bajaanis ba u helin aanad iridaba dhaafin oo lagu yiraahdo wuu maqan yahay shir buu ku jira oo kan waxaadna moodaa golaha deegaanka oo kale waaxdiisa arrimaha bulshadu way jirtaa wali maanaan arag inta Soomaaliland jirtay ama ilaa iyo intii golaha deegaan la dooranayay 2002 weeyaan waa waqti ku siman 19 sano wali qof ka socda golaha deegaanka ama xukuumadda wali dadkan u yimi ama yiri maxaa qabtaan xaaladiina waa sidee lama hayo waxaan nahay dad la ilaaway oo lagu alaaway guryaha iyo qoysaska ay la nool yihiin oo iyagu u xil saaran si ay dadkan u baalkeen lahaayeen tusaale ahaan waxa jiri kara hooyooyin 3 qof oo naafa haysta oo aan awoodin inay waxbarasho geeyaan inay caafimaad geeyaan haddana cashuur bixiyayaal oo subaxaana cashuurta bixinin de laba halkeen karo laga yaabaa miiska yar wax ku iibinayaan in la yiraahdo kaba kaco la xiro hadii bixin waayaan cashuurta waxana wanaagsan qofku maadaama uu yahay muwaadin oo cashuur bixinaya cashuurtiisu inay ku soo noqoto maaha cashuurtu inay in gaar gacanta u gasho la yiraahdo tababar gelinaya waxana ilaawaya oo digrii ku xidhaya aanay awoodi karinin dadkii nugulaa ee xaq ka saarnaa dawladna waxa lagu qiimeeyaa ama dawladaha adduunka dawladaha ay ka fiican tahay arrimaha bulshada shacbigeeda aad bay uga sii nugushahay marka waxaad soo ran kartaa dawladeenu halkii sare ka bilowday iyada dabaqadaha bilaabayso dad baa jira la alaawayaan waxba loo qabanayn halkan nin wax bartay oo maasha Allah shaqaysan karo ilaahay caafimaadkiisa iyo lixaadkiisa u dhameeyana la leeyahay shaqo abuur loo sameeyo waxa la ilaawaya oo muddada 29 sano tacdaraysan oo dib badan dareemaya waa dadkii baahiyaha gaarka ah lahaa waad moodo dawladani markii ay dhaaranaysay ama madaxda dalka joogta ama nin kasto xukuumadda ka tirsan marka uu xafiiska imanayo waa la dhaariyaa wuxuuna u dhaartaa shacbiga reer Soomaaliland inuu si siman wax ugu wada qabanayo si cadaaladaas waxaanu leenahay way maqan tahay oo dadka naafada ah cadaalad kuma haystaan Soomaaliland dhinaca shaqada caafimaadka waxbarashada hoyga iyo wax kale oo badan iyadoo maanta COVID-19 jireen ognahay adduunyada bas ay u kala xidhan tahay dadka naafada ah haddana taa waxa u sii dheer baahiyahoodii waxa u sii dheer in kala xidhkan adduunka iyo dhibaatadan timi iyo lockdown kan uu keenay coronavirus-ka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaga kor qaaday inuu saameyn kale dadkan ku sii keenay marka madaxweynaha iyo xukuumadda waxaan leenahay war dadkan hafaaf bariiso ay hay'ad bixiyaan wax ma tarayaan mudane madaxweyne iyo xukuumadda joogtay xaq dadkani leeyihiin
ha ka helaan qaranka Soomaaliland ha ka helaan qaranka Soomaaliland geesta kana Jaamac Muuse Faarax ayaa telefishinka caalamiga ee Kalsan TV tusay documentary ay ku jiraan laba cod shaqo qaran oo ku xareeyay barnaamijka shaqo qaran isla markaasina loogu diiday inaanu haysan wax shahaado ah waxaana uu Jaamac Muuse Faarax sheegay inaanu qarankiisu barinba wax aqoon ah aniga wax laga reebay sida idin muuqan karta warqadani waa labada jeer warqadii aan ku gudbistay inaan ahay dhalinyartaas inaan ka qayb qaato barnaamijkaasi waxaan aan ku waayay degree ma sidati degree maadaama aan degree sidan xaq u maad leeyahay inaad barnaamijka shaqo qaran ka qayb qaadato anagu waxuma uma hayno naafada ayay u dhiganta mudane madaxweyne digreetada degree nagu xidhay la yiri shaqo kuma heli karaan degree la'aan digreeta kale hana loo soo saaro la leeyahay qaranka dadka naafada waxba kuma laha xuquuq ay leeyihiin ma jirto taas waan jeclaan lahaa in laga soo faafinta rasmiga ee dawladda lagu soo saaro oo la yiraahdo oo dadkaasi degree la'aan bay xaqoodu waayeen ama aanu dixno jaamaca waxa tahay cod bixiye cashuur bixiye madaxweynaha dalka maamulaya waa Muuse Bixi Cabdi dadkii doortay baad ahayd maxaad ugu dambeyn ugu baaqi lahayd oo madaxweynaha u jeedin saakan uga jeedin mudane madaxweyne waxaan ku xasuusinayaa 2017 bishii 8aad maalin naafo badan aad kula kurantay xarunta xisbiga kulmiye xilligaad ahayd musharaxa waxaad noo sheegtay haddii talada dalka Ilaah ku guuleeyo subxaanahu wa ta'aala in ay xaqooda heli doonaan dadka naafada ah maanta waxa tahay madaxweyne Ilaahay taladii uu kugu galay muddo 3 sano oo ku dhamaatay naafadu ma helin mudane madaxweyne xaqii ay lahaayeen maalinta aad garowsanayd ay lahayd way helayaan khudbadaadii u dambeysay markii dib lagu cimaamaday 5 sano soo socota inaad noqoto musharax madaxweyne kuma aad soo qaadin in kastaad ka hadashay dhalinyarada haweenka ma aad soo qaadin naafada iyo dadka baahiyaha gaarka ah waxaan halka ka muuqanaysa in ay idinku kala korinaysaan oo bulshadii ka dhigaysaan dabaqado qaybina ay dhulka taalo qaybina ay soo kabanayso aad u korayso Adnan Cabdirashiid Ali telefishinka caalamiga ee Kalsan TV Ceerigaabo